السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام. ولا ريال عاو حين كهضلينا دول بوب كباهسن كسعود مقالة مقدشو أو أن وحبا لهم بينين حيابها ودرنا وحوي وحيابه الدنتقود سيدا اسبيتالا يا اسكولا يا وحي لمده waxaan maalin dhaweyd arkay nin odaya professor Yaxya la yiraahdo magaalada Muqdisho jooga video uu sameeyay uu aad iyo aad maaragtay qayladaan uga sameynayo isbitaalkii Martini oo lagu daaweeyo dad badan oo ama cudurka qaaxada qaba ama cudurrada kale oo magaranaysa kaliyaha ku dhacaya waxa qaba oo kaliya dhaqida loogu sameeyo dad badan oo cudurro caynkaas qaba lagu daaweeyo oo ay dhiseen hay'ado caalami ah oo loo qalabeeyay oo la dhigay magaranaysa qalab fara badan oo maartay wax lagu waxeeyo oo cudurrada iyo waxa lagu ogaado la meesha lagu rakibay sida uu sheegay niman South Africa laga keenay ay ku rakibeen oo maartay lacag badan iyo kharash badan ay ku bixeen in alaabtii la furfuray inta la yimid isbitaalkii qalabkii la furfuray qalabkii lagu ogaan lahaa cudurrada dadka hayo lagu baari lahaa la furfuray marka runtii yani aad iyo aad baan u yaabay waxaan sameynay ama waxaan ka dambeeya maxay tahay waxaan jeclaan lahaa bal dadka Soomaaliyeed marka intaanan professor Yaxya iyo hadalkiisa iyo videogiisa idin tusin ama anigu aan faalla ka celin bal waxay idin la tahay sida Yaxya u damqaday oo u diiday waxa ama anigu aan u diiday idinku ma u diideen dadkiina ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan oo isbitaalkan ku tiirsan arintaas ma idin dhibta haddii idin dhibtay maxaa tilaabo qaadeen ma ka falceliseen ma ka mudaharaadeen cabasho ma ka jeediseen boorar ma qaadateen maxay kula tahay adigu qof ahaan markii waxyaabaha danta guud oo caynkaas oo kale maslaxada ummaddu ay ku jirto lagu xadgudbo waajibkaagu muxuu yahay haddii aynu iska aamusnaano oo qof walba uu iska fadhiyo oo uu shib iska yiraahdo maxaad u maleynaysaan ma waxba isbedelaya maalin walba meel baa lagu dhiiranayaa meel baa lala kacaya waynu aragnayna in markii aynu noqono dadaan maaragtay karti lahayn oo wax ka falcelin karin oo ma garanaysaa danta guud iyo danta gaarka aan kala saari karin waynu aragnay arrimuhu say noqdaan meel walba oo banaaneyd baa la dhistay meelii carruurtu ku ciyaari jireen baa la dhistay iskuuladii baa la dhistay qabuurihii baa la dhistay meel walbaa la dhistay wax la reebay male hantidii dowladda la qaatay wax walbaa la qaatay adigu marka muwaadin muxuu yahay waajibkaagu muxuu yahay waxaan jeclaan lahaa bal waxay idin la tahay dadka Soomaaliyeed inaad maaragtay halka faallada ama maaragtay ku soo qortaan commentigeena runtii waa jeclaan lahaa bal inaad ogaadaan meeshaad ka taagantihiin oo kaliya ma ahan waxaad qabto ra'yi ahaan laakiin ficil ahaan wixii aad ka geysatay ama waxaad doonaysaa inaad ka geysato ama sida aad dad kale ugu xirmi karto oo magaranaysaa si guud oo wada jira oo maaragtay isbuuxinayso tiro badana aad maaragtay arrinta maaragtay ugu istaagi lahaydeen ama aad u samayn lahaydeen hay'ado maaragtay isha ku haya maslaxada guud oo ilaaliya dhulka la dhacayo oo danta guuda ma garanaysaa cuntada dhacday oo dad wadanka la keenayo daawada dhacday oo wadanka la keenayo musuq maasuqa yani waxa la doonayaa muwaadiniin isku xiran iyagu oo kala duwan oo qolba meel isha ku hayso adigu marka doorkaagu muxuu yahay ma ka fikirtay in waajibka caynkaasi ku saaran yahay ama inaad dad kale oo aad maaragtay isku aragtiya tihiin aad raadsatid oo ma garanaysaa aad kala shaqaysaa arrimaha caynkaas وجعلان لها بلينا واحد إذن لا تهي أتكهذا الشام وإذن كنا أتهلك يجو شيطان دبنا ما يبي إنه كسيف على إنه أما وحكر الشام وحنا نحسب كر الشام بروفيسور يحيى إنه في سنة فيديو جيس بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم حرب أنا كهذا أريت إسبيتالك لانسريتي مقالة مقدشو وده كان ما لبضن أو حرمة أو دولد وإلى هاد أي دولد ولا وريكتي حقنا أقول هذا شرعيا تو بروسيس إن لمرة أي تاي لكن باهيدا عافماده وده كجستو ولي مجرى إسبيتال وده كويا إلى الوريقي
isbitaaladii waaweynaa ee martiini iyo banaadir iyo kan xooga digfeer kan booliska isbitaal qaran lalama wareegi weli waa marka ugu horeysay ee dad ganacsata ay leeyihin isbitaalaa nala siiyey markaan raad aan goobnay oo daba kacnana waxaan ogaanay in xataa dowladda sare ayna ka warqabin oo siyaabo kale loogu sheegay laasareti waa isbitaalka dhul ahaan ugu ballaaran waxaa ku yaala qaybo badan haddaan soo qaata qaybta t b da waxaa looga aadi jiray marka hore dadka t b du ay la qabsatay korkooda ee daaweyntooda ay adag tahay waxaa la aadi jiray ifo iyo xero kaloo kenya ku taal in waddanka laga tago in dadkaas si fudud looma daaweyn karin hadda iyadaa loo yimaadaa gobolladoo dhanaa looga yimaadaa waxay daaweysay ilaa hadda 2,060 qofood waxaa hadda ku xiran oo daawada u socotaa 100 qofood qalabka waxaa loogu deeqay hay-ad lacagta oo la global fund iyo hay-ad kale waxaa ku baxday qalab waxay keeneen 7 milyan oo dollar inuu yahay jeclaha 7 milyan oo dollar qiimihiis oo ahay waxaa rakibay niman oo South African laga keenay oo hay-adahaas ay keeneen oo 50,000 lagu siiyey qalabka saasa dadka oo la daaweynayo ka yimaada ama marka ama baydhabo bil kasta transport loo diraa si daawadana aad ay qaali u tahay meeshay ku qaataan dad badan oo TB-du ay dilootay ay naqatay tii la qabsatay waa lagu guuleystay inay caafimaadaan isbitaalka marka qalabka saasaay nimana yimid waxayna qalabkaana nolol soo diray inaan furfurno tajinisin maqaasiina la geynaa hay-adii maalgelin waxay yidhaheen musiiba idinku dhacaysa haddii la qaado qalabkan marka intaas ma ifaa loo aadaa dadka fikirayaan miya intaas soo qofo oo dhiban waxaa kaloo ku taalo talaalka waxaa nolol ku hay jira talaalka Mombasa aan ka soo qaadan jirna markaan u baahano hadda talaalka waa la soo rabay waa la keenay laasariit qaybo badan oo dhisan oo casri u leeyahay hadda dhismo kale ka socda oo UN ay fulinayso waliba meeshaas hadda laga dhisayo dhismaha dad odayaal oo beledkan jooga aan rabeen inay waana kaana la siiyo waa dhisanaynaa isbitaal la bixinaana dowladdana kama maqal dowladda warka ay noogu dambeeyeen wuxuu ahay isbitaalkaas private lama sii karo waa isbitaalka ugu ballaaran dhulka 6 degmo xamar ku taala isticmaasho iyo gobolladoo dhan qaybta waalidoo lahaa jira waa tegay maalin hore 100 qof oo waalana ku jirto oo dadka xoogaa dhimarkooda waliba qaar badan bannaankay fadhiyaan waa ku sheekeynayaan makhaayada ugu yaalo sida idinka muuqata Professor Yaxye wuxuu runtii muujiyay carab ballaaran iyo ma garanaysaa inuu rumaysan kari waayo in sidaa ku dhacaan isbitaalka la dhisay oo kaalmada lagu dhisay ayaa inta niman loo soo diray waxa la furfura qalabkii oo dhan kala daadiya war xagee u wadaan meel baan geenana bakhaar baan ku xareynaa oo maxaad bakhaarka ugu xareynaysaa niman baa raba inay hotel ka dhistaan ama magaciisa ka dhistaan nimanka marka hotelka ka dhisanaya oo sidaan samaynaya anigu waa yaabanahay qalbi adaygooda iyo bini'aadanimo la'aantooda waa ka yaabana war meel caynkaas oo boqolaal qof oo sidaa u dhibaataysan lagu daaweynayo oo lagu xanaanaynayo sidee ayaad ugu dhiiran kartaa inaad tirahdid maya ka saara shaqo kuma lihiya anaa ganacsiga lacag ka samaynaya ganacsiga ay lacagta waad ku dhimanaysaa khayrna ka heli maysa oo wax la yaab leh uquba kaaga dhacaysa taas dadka meeshan mas'uulka ka ahaa oo maamulayaysa see waxaan ku ogolaadeen xagee amarku ka yimid Yaxye si cad uma sheegin wuxuu sheegay in dowladda sare buu malaha uu jeedaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo I don't know dadka caynkaas shaqo kumalo wax kama oga buu yiri yaa wax ka og marka yaa waxaan soo xukumay haddii marka waxyaabaha xadgudubada caynkaan oo kala dhacaan maxaynu ku kala baxaynaa see wax ku xalinaynaa markii qof walba markii meel wuxuu leeyahay madaxweyne war waddanku waa inuu sharci yeesho madaxweyne maaha maxkamadihii iyo looyaradii maad aadaan maad lacag iska ururisaan maxkamadaha iyo looyarada tagtaan anigoo tii Yaxye sheegay la yaaban ayaan waxaan arkay nin kale oo dhalinyaro oo isna ka hadlayo leh isbitaalkii booliiska ee Madiina ayaa qayb la goostay oo niman ganacsataa loo gooyay يعني wax la yaab la weeye iskuulka wuxuu meesha la goostay biyiri waxa la doonayay in laga dhiso iskuul ama jaamacad lagu tababaro dhalinyarada Soomaaliyeed oo malaha iskuul caafimaad iyo waxay tahay ma aqaane adigu halka iskuul baa laga dhisi lahaa biyiri dan guud hawlaha dan guud ayaa lagu qaban lahaa marka anigu waan yaabay meeshan aan waxba la reebayn dadkiina aanay waxba kala jeclayn anigu isbitaalka Madiina waan garanayaa runtii
beri hore intii waddanku nabadda ahaa ayaan dhowr jeer tegay dad xanuunsan ugu tegay dhul weyn buu lahaa geedaad iska hoos fariisanaysa quraacda halkaa ku taalay waxbaa ku yaallay cajaa'ib bay ahayd dhulkaa waxaa loo reebay oo sidaa loogu weyneeyey yacni baahida dadku inay kordhaysaa la ogaa markii la dhisay waa muddo hore laakiin baahida dadku inay hadhow kordhayso ayaa la ogaa oo maybe isbitaalka in la ballaariyo loo baahan doono oo halkaa in wax kale lagu daro danta guud baa dhulkaa loo hayay laakiin ma ahayn in loo hayay ama maaragtay halkaa loo dhigay in nin ganacsataa uu yidhaahdo waxaan ka dhisanayaa ama guryo aan ijaaro ama hoteello ama magaciisii waxay la tahay dadka soomaaliyeed inay gartaan oo aqoonsadaan in danta guud iyo danta gaarka ah la kala saaro danta guudna in loo istaago oo la ilaaliyo waajib baa inaga saaran danta guud oo inaga dhaxaysa oo kulligeen aynu maaragtay ka faa'iidayno waxaa ka mid a inaynu ilaalino meelaha ma garanaysaa dhulka danta guud oo carruurteennu ku ciyaarto ama carruurteennu iskuul ku dhigato waxbarashada ama laynagu daaweeyo isbitaallada inoo ah ama ma garanaysaa beeraha ah oo aynu waqtiga ku qaadanno oo fadhiisanno ama waddooyinka ah ama waxyaabaha caynkaas kale inaynu ilaalino waxaa kaloo waajiba inaynu ilaalino nabadgelyadeenna wada jirkeenna inaynu ilaalino wax walba oo markaynu ilaalino yacni faa'iido guud inoo keenaysa inaynu ilaalino dadka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inaad runtii baraarugtaan oo ka baxdaan iska hurudkaan iyo waxaan idinkaale midda kale barta inaad looyarada isticmaashaan inaad maxkamadda aadaan inaad waxa soo qaadaan maaragtay amar lagu joojiya maxkamadda ka soo qaadaan inaad ceebaysaan kuwa saa samaynaya inaad ganacsiyadooda diidaan inaad wargeysada kusoo qortaan inaad dadka kooran ka dhigtaan see ummad ku noqonaysaa haddaysan wax qabsan oo u istaagin muraadka iyo danaha ay leedahay haddaysan u istaagin see ummad ku noqonaya haddii qof walbaa iska dhinac maro yidhahda anu shaqo kuma lihi xaggee wax ka hagaagayaan marka runtii waa nasiib daro ninka doctor yaxya runtii waa mahadsan yahay inuu arrintaas soo qaaday laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu qayla dhaanta intaa dhaafsiiyo oo uu dadka mikrofon la dhex qaato dadka muqdisho oo yidhaahdo soo baxa oo meesha intuu tago halkaa uu maaragtay horteeda fadhiisto oo tabeelayaal waaweyn dhigo oo cid walba isugu yeero waxaan jeclaan lahaa inuu ka daba tago dadkii waxaa ka dambeeyey oo uu ma garanaysaa sharciga la aado ma aha madaxweynow iska dhaafa sharciga barta inaad isticmaashaan waa cabdi maxamuud qalac ee barnaamijka idinka imaan jira machadka nabadda iyo bulshada walaalayaal caawa intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu